waxaan ballan qaaday oo visionkayga ama aragtideeda foga ummadda Soomaaliyeed inaan rajada ku soo celino rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol weeye nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso waxaana bays u ah nabad iyo nolol kow waa idiin sheegay danta shakhsiga in laga guuro oo loo guuro dan guud danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idiin keeno saan idiin ballan qaaday ra'iisul wasaare iga wanaagsan ra'iisul wasaarahana ballantii waa fuliyay wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan wasiiradana waxaa looga fadhiyaa bacdama 60 bari ay joogaan inay keenaan shaqaale ka wanaagsan ballantaas midii fuliyay ballantaas kuwa ku xigana aan sheego aan idin fulinay amaanada kow waxay ka ahayd wixii aan ballan qaaday amaanada ummadda Soomaaliyeed waa kala shakis waa la kala fogaaday waxaan isku diray qabiil iyo qabyaalad iyo xagjirnimo amaanadu waxay tahay wixii aad noo dhiibateen inaan siday tahay kugu hayno oo aan isku keen hayno oo wadajir iyo midnimada kugu shaqayno wixii aad noo dhiibateenna si fiican kugu maamulno oo aan la dagaalno musuqmaasuqa aysan jirin shakhsi keligiis gaar u naaxa oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyay khayraadka dalkan leeyahay oo idin soo wada gaaro macquul ma aha mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa riboorka idin siiyay ra'iisul wasaaraha waa bilaaw waxaa idinkaga fadhiyaa idinka dulqaad yaa idinka rabaa iyo wada shaqayn inaad sii xoojisaan inta hadda aad maqasheen oo 60 casho ah waxaan idinka ballan qaadayna 4 sano ka bacdi inaan noqono dowladaha ka magacaaban Afrika hadduu Ilaahay yiraahdo waxaad maqasheen inaan la dagaalanay musuqmaasuq waa maqasheen waa bilaaw ma dhow hawsheeda dalkan waxa meesha istaajiyaan arkaysaan waa musuqmaasuq markaa arkaysaan argagixiso ama xajir waxaan naaxiyay waa musuqmaasuq markii loo diiday askarta forashii ku jirto oo kaneecada ku leeyahay mushaharkooda waa musuqmaasuq markay idinka mushaaradina ladii diiday ama shaqaalaha dawladda rayidka loo diiday mushaaradooda waa musuqmaasuq lacagta way jirtaa ee qof jeebkiisa aad waana joojinaynaa amaanada noo dhibateen waxaa la socda amniga wax kaligeen annagu aan samayn karna maaha waa wax noo wada yaalla shaqo noo wada taalo weeye amnigaasi wuxuu ku xiran yahay idinka ciidamadan haysana tiradooda waa taqaanaan guri walba iyo geed walba ma istaagi karaan idinkaa la rabaa inaad u sheegtaan xogta meesha canigu ku jiro meesha qofka qarin dumiska uu ku jiro idinkaa la rabaa inaad usoo sheegtaan amniga markaasaa laga rabaa inay agtigareeyaan oo ay qabtaan waxaan uga mahad celinayaa shalay magaalada xaafadda waa bari miinadii ninkii ku aasaayay oo qof shakhsi ah oo reer waa bari uu soo sheegay haddii arrintaas ay badato qof walba uu magaaladan degan oo reer banaadir uu xil iska saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah waxaan idin sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso insha Allah waxaa kaloo idin sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadnay oo aan dhaar u marnay xasiloonida magaaladan yaan dhaar u marnay xasiloonida macnaheedu waxay tahay magaaladan bilicdeedii quruxdeedii iyo sharafkeeda inay soo noqoto inay la tartanto Kenya Nairobi inay la tartanto Addis Ababa inay la tartanto caasimada adduunka ma kula tartami karno iyadoo boroono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoyo culus ay saaran yihiin oo shacabka lagu leenayo kulama tartami karno qofkii askari ah oo qof shacab wax u geysta ogaaw waxaad ogaataan tiirkaa kuu dambeeya maxkamad baa lagu saari waxaa kuu dambeeya haddaad qof disho
ما وحكومة ما يشتري كذا استاجيس إذا ما قلب كثيرة واحد إذا ما قلبوا سيدوته شعب كيننا إلى لسان إنا احترامتان إنا الله شقيسان إياك وحكوته هذا ليسان أو حرمة الرئيسان يا دولد ولا هلو يا ديك عيد وتيه شعبك كيس الليتا هلا قالوا كيس تبدرن ولا حق دريعي حقيس هلا سيو كان توجا أو خاينك أو قرنجوبس كان قبطة حقينا كاس كبحية شعبك أكون بحرينا حسنورنا واتاس مرك إن قفوا شرعي وهو سنادو ما قف في قرية هيستا إنه كأول بنيه شعبك إياه دولة ما وحوي قفك قرية هيستا وعيدا كأول قرية هيستا دفاع عدل كيس إياه أمديس أنت سالم كيف ديا وأوجا هي هاو في عمل قبطان مال والبا وأوه هنتيهين دفاع عدل كينا لكن خلطات كبعاية هي كينا هم أو كسر جسنا يا ماتيرا أما دبعتين أيه هلا قبط محايا المجا دولة يا مجا عيدك وحودي مايا هلا قبط أمانك لا دجالك أرجع حسابه وأنا يقعد لكن وحنا ظهر ريا إن عن هاي ولا له ناتيهين عروتي ناتيهين إلهي يسوع هذي نوعي ماذا أنا جالسين واحد بعنتيهين دولة في عنواها ستان دولة آمنة واها ستان دولة عالم كله حساب تتواها ستان إذا كان أمي صوم من الرجل وعليه هنا أو الدفاعي هذا دفك جوجسان قريه هذا الأمر هنا جوجيه دفك ومدين هلايننا هنتيجين حب البرونة إيمان الله إيمان كوا أجنبي وهل كان أجمد إنه يوم الصومالي يديدان دولة دمو أو يديدان هرمرة أو عالم كنجا حيران أو لقد كان الصومالي إنه تاعي بحالقلين أو كان مقدشة مير الإيمان كريم ويسكن علمي إنه هذا بل كانوا وايد كسرين أنا جالس كله بل كان أنا جالس كله كنا أنا دوتين وحنكون شقينا وهاينا وايد كاشجني وايد كون شجني وحنكون شقينا وبلنتين هي دانت دلك يدك يديته عيدا كتلاش كسيدة سيدة الحين تفتح وقتي سيدة اللي كذا قال أفريقيا وقتي ما أنت حالة كجرنا وقتي إنا وحكبت الحالة وقتو خصبنا إنا حالة وحكبت الشيء وقتو خصبنتي وقد قالتان دوركي اللي هندفتين حالة يجرفوا على كجرتان أما هو الجرب تاجنا هاي مشاهدين هو الكوسة بدالنا إذن كنا ذلك نقولين قد يالدنا كفوا هذا قد يالد واتن صومالي قرن البوريسي كفوا هذا قد يالد وأركيس قد يالد ماشي نلكتي إن عيد ماشي شيء نوكل دحجران إن أفر بقول صدق بقوله محاكونا هذا عيد مو حق جراه ودبلا كيمي إن صومالي ودي ذا ينبض واركتان ماشي أسوحنا جالسين قد يالد منك هذو درس حرتو عرن كان الجرف كل حرتو وعلم قرنا قبيل معها ما أنت قبيل آدهم بريسو أوه واتكبر هذا عيدك وأنا كم محكمة دينا وحد أدارتي قرن كصوم عليه إلى الدفاع له أنت أصلا كافلنا وحد لو سويته عدالة وأنبلنا ذكاء قاضي أمانه يا أمي وهوت وطه وهذا عن وضله عدالة صوفي صلاة صوف هذا سدح الدوا صوصعته وحن كقبل عدالة واضح ماخي ومدن صومالية دولي واتيسن إن حق وضعه الويان وحفي عن ما رجع وضياشا وحاكمين تا وحان لي شيئنا هذه أول أيجرين إن تقول له كنتان شنجر وتكون ركتان وقت كده واضح مالي إن هو يأويس أما قف حق يسوء أوياي هذه واتيسن وقت كده واضح مالي عدالة بالين كرر وحدات عدالة كين ويدان أنا كده ممثل هشان شعب كممثل هشان دولة ممثل هشان وحكون بين سنة حبسي مرضى بدعي ميسو
oo ana ballan qaaday oo dawladana ballan qaaday qof Soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha uu taagan yahay gaarsiiyay oo Ilaahay noogu carooday oo aan adduunku wax uga hooseeno laba qof iyo saddex qof oo xun ka yeeli mayno inay magacayna isticmaalaan ummadda Soomaaliyeed ay duleeyaan ay dhibaato u geystaan oo ay xaq darro ku sameeyaan u adkaysan mayno waa idinla xisaabtamaynaa haddaad hawl fiican qabatidna oo cadaaladna annagana waan ku abaalmaraynaa aakhirana Ilaahay waan ku abaalmarinayaa jannad ku gelaysaan haddaad dhibaato samaysaanna annagaan ku ciqaabayna aakhirana waa ku dambaysaa arrinta horumarka dhaqaalaha oo ku xiran cadaaladda markii aan ammaanada idin ilaalino oo amni keenno oo cadaalad idin keenno dhaqaalahu waa horumari ummadda Soomaaliyeed waxay u jihaysanaysaa barwaaqo iyo horumar iyo nolol waa igu ballan dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% ah oo shaqo la'aanta hayso 4 sano hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo ammaanada cadaalad laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya xitaa annaga bixinayna welfare wax la yiraahdo macaawin annaga bixinayna maxaa yeelay wixii jeeb shakhsi aadi jiray annaga u hayna qofka curyaanka qofka maskiinka gabadha agoonta haysata ilmaha agoonta kulli annaga dawlad u ah ilaahina anigu nagu raxsatamaya dhaqaaluhu waa horumaraya haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dawladda aad kala shaqaysaan cadaaladda haddaad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa loo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa maxaa yeelay dalkani waa dal khayraad badan dhaqaaluhuna wuxuu ku istaagaa 3 arrimood yuu ku istaagaa dalku waa inuu khayraad leeyahay dabiici ah waa leenahay dalkeenu waa buuxaa labo waa in dalku maamul iyo shaqaalo fiican oo hufan oo xirfad yaqaanaa uu leeyahay marka saddexaadna dhaqaaluhu waa imaanaya oo labadaas dhaqaalaha ku xiga oo capital la yiraahdaa way naga go'an tahay annagu inaan la tartanno caalamka waa naga go'an tahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaysan u midoobin danahooda haddaysan dalkooda u midoobin haddaysan diintooda u midoobin caalamku way ka harayaan caalamka waxaan kula tartamaynaa annagoo mid ah annagoo wada jira yaa caalamka kula tartamaynaa caalamku wayna fiirinayaan sidaan wada shaqeyno shacabka iyo dawlad see wada shaqeeyaan haddii ay arkaan in aan nala dhex geli karin waa noo soo istaagayaan wax alla wixii aan ka rabnana waa nagala shaqeynayaan annagoo siman annagu cidna u daba istaagi mayno cidna u daba istaagi mayno annagoo wax qabsan karna cidna u daba istaagi mayno innagoo isku tashan karna annagu waa inaan isku tashanno taasna waxay ku imaanaysaa dawlad fiican iyo dad fiican oo wada shaqeyn leh yaa ku imaanaysaa caalamku waxay u sheegayaan ganacsatadooda marka inay Soomaaliya maalgashadaan maalinta Soomaaliya maalgashi u bilowdo oo dawlad nadiif ay joogto iyo shacab nidaamsan waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka horumarayso dawladaha Afrika goolkeenu iyo visionkeenu waxa weeye 4 sano ka bacay inaan ka horumarno Afrika hadda yarsanna waa ka horumari karnaa waxay ku xiran tahay rabitaankeenna annagu ma rabnaa horta inaan dad Soomaaliyeed oo wax walba wadaag inaan nahay ma rabnaa inaan noqono dad Ilaahay ugu xamdi naqa inaan leenahay dal fiican inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin Ilaahay muu xamdi naqi karnaa Ilaahay muu noqon karnaa haddaan intaas gaarno oo iscafino Soomaaliya waa istaagaysaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi